بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال إن شاء الله تعالى ومالنتي اللحاد يا برامجك إنه كجور رميني بشهر رمضان بركيسن آداب تيدا أحكام تيدا يسيالها قفك مسلم كوجفة إذا سنة فرصة آت كوقيمها بدن waxaynu soo qaadanaynaa maanta oo fadhigeena insha Allah taala uu daaran yahay arkaanta soomka tiirarka loo baahan yahay in soomka la helo si uu soom sharci u noqdo tiirka koobaad waa niyada tiirka koobaad oo tiirarka soomka kamida waa an-niyya niyadu acmaasho dhan bay shardi u tahay ama rukni u tahay oo nabiga kaleey salaatu wasalaam innamal a'maalu binniyat wa innamaa likulli imri'in ma nawa acmaashu waxay u rahaatay niyada xagga asixitaanka iyo xidhanshada ay xidhanto marka la fiiriyo qof walibana wuxuu niyooday buu leeyahay ayuu nabiga kaleey salaatu wasalaam niyadaas marka ahkaam bay leedahay la rabo in la ilaaliyo soomkii marka la niyoonayo waxa koobaad ee loo baahan yahay in la ilaaliyo waa waxa la yiraahdo at-tabyiitu bin-niyya qofku waa inuu niyada habeennimo la yimaado hadii waagu ka bariyo soomkuna soon farad aw ahaa khalaas maalinka soonkeedu waa ku dhaafay bay ka dhigantaa marka waxa la doonayaa inta habeennimo lagu jiro in uu qofku la yimaado niyada la yimaado oo nabiga kaleey salaatu wasalaam man lam yubayyit as-siyama min al-layl fala siyama lahu qofka aan habeenkii soonka ku bariyin oo habeennimo aan niyeysanin soon uma jiro nabiga kaleey salaatu wasalaam soon uma jiro ayuu nabiga kaleey salaatu wasalaam marka shardigaasi waa loo baahan yahay waxa kale oo kamid ah shuruuda niyada soonka inuu cayimo waxa uu soomaya waa maxay ramadaan ba farad ba qada ba nadar ba leeyahay saddexda ku yahay waa inuu habeenkii sii niyoodo oo waxaynu sidaa ula jeednaa soonka sunnaha ah isaga shardi ma aha in habeenkii la sii niyeysto soonku hadduu sunno yahay maalintii intaan zawaalka la gaarin oo duhurka la gaarin wixii ka horeeyo dhan qofku uu niyeysan karaa tusa waxna cunin waxna cabin oo muftiraadka uu iska ilaaliyay uu niyeysan karaa laakiin mar haddii soonku soon farad yahay waxa laga rabaa inaad niyadii ku baridid niyada aad ku bariyaysidna waxa laga rabaa inaad sii cayintid waxa aad soomaysaa wuxuu yahay oo habeenkii uu sii niyoodo inuu berrito soomi doono soonkii bisha Ramadaan ee sanadaas uu ku jiro Ilaahay uu soomi doono subhanahu wa ta'ala ayaa laga doonayaa waxa kale oo iyaduna shardi ah oo shuruuda soomka shuruuda kamid ah niyada waa in la helaa waxa la yiraahdo takraar habeen walba waa inuu gaarkiisa u niyoodo habeen walba waa inuu gaarkiisa u niyoodo oo macnaha caawa uu niyoon habeen damana gaarkiisa u niyoon habeen walba gaarkiisa wuxuu u niyoonayaa berrito inuu soomi doono oo macnaha waxay ka dhigan tahay marka jumlo duuduub ah uma niyoonaye habeen walba gaarkeeda sidoo nabiga kaleey salaatu wasalaam man lam yubayyit as-siyama min al-layl habeenkii marka inuu noqdo ayaa la doonayaa habeen walba gaarkiisa u ahaado niyadu xagee wax laga niyoodaa qalbiga laga niyoodaa waxayna baraarujinayaan niyada sida dadka qaarkood isugu kalifayaan maaha qofku mar haddii habeenkii ay azmigaaga iyo go'aankaaga aad ka dhigtid oo qalbiga ku gunudid inaad biri soonkii Ramadaan soomaysid khalaas niyada lagu sheegayo loo baahan yahay waa intaas mar haddii niyadaada ku gunuday birita inaad soontid soonkii Ramadaan oo aad intaan niyeysatid khalaas soonkii insha Allah ta'ala waa ku xiran yahay oo niyeysatid ayay ka dhigantaa rukniga labaad oo arkaanta soomka kamid ah waa al-imsaaku 'an al-muftiraat waxyaalaha wax afuriyo in laga afhaysto wayno imaan doonaa waynu faahfaahin doonaa insha Allah ta'ala waxyaalaha wax afuriyo rukniga saddexaad waa as-saa'im waa qofkii soomana marka arkaantaas ay leedahay soomka uu leeyahay insha Allah ta'ala fadhiga kan arkaantaas ayaynu insha Allah ta'ala ugu talagalnay wallahu a'lam sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyina Muhammad